Soomaaliilku waa dembi laga qoomameeyo markaad subaxdii soo kacdo. Ma ogtahay in xanuunka marka uu ninku maqlo albaabka gaadhigiisa oo si xoog leh loo soo xidhay inay ula mid tahay 3 dumar ah oo umul ku jira? xilliga ugu fiican ee lamaanu isfahmaan waa kadib da'da 80 jirka. Ma jirto maqal iyo awood ay ku hadlaan. gabadhu waxay door bidaa inay qurux badnaato in ka badan intay noqon lahayd mid aqli badan, maxaa yeelay waxay og tahay in ay raggu indhahooda ku arkaan in ka badan intuu ku fikiro aqligiisa. qofka doona gabadh fiican oo qurux badan oo aqli badan waa mid raadinaya 3 gabdhood. dumarku saxaafad ahaan waa habka ugu fiican ee warka lagu gudbin karo. labadiga ayaa waxay ku wada noolaayeen nabad ilaa digaagad soo baxday. nin kastoo weyn waxaa daba joogtaa gabadh ku leh ma weynid. iska ilaali geesaha dibiga iyo qobobka dameerka iyo la dhoola caddaynta dadka qaar. waxaan doonayaa inaan soo ururiyo xoogaa shilimaada oo igaga filan inaan iskaga daaweeyo xanuunkan ka qaaday intii aan soo ururinayay. maxaa ka fiican sida ninka iyo gabadhu u kala qaybsan shaqada guriga? iyadaa karinaysa, isagaa cunaya, iyadaa maydhaysa, isagaa xidhanaya, sariirta hagaajinaysa, isagaa ku seexanaya. alla maxay door fiican raggu ka ciyaareen guriga. waanu ka xunnay, dumarka qaar waabay diideen quruxdaas. dadka qaar uguma jawaabo hadalkooda koobaad, maxaa yeelay waxaan ahay mashquul. saddexaad miyaa anigu ma jecli, maxaa yeelay ma jecli ku soo celcelinta. God have mercy upon us. saaxiibada qaar agteeda ma soo istaagaan ilaa markay sawir kula gelayaan mooye. qulubta dadku ma aha jannadii. ha ku daali naftaada si aad u sii joogto. saaxiib ma leeday? haa waan leeyay. haddaa maye aduu baan ku arkaaye. markay u imanayaan dan cusub anaa ku tusinaya. istilku waa waddo qofku caan ku noqonayo isagoo wax awoodo lahayn. saaxiibku waa inuu garabkaaga taagnaadaa markaad qaldan tahay ilaa markaad saxan tahay. dadkoo dhan ayaa ku garab taagane. waxaa jirta 2 nooc oo ay suuragal tahay in laga arko meel fog: buuraha Himalaya iyo caajiska Donald Trump. sariirtu waa meesha ugu khatarsan caalamka. 99% dadku way ku dhintaan halkaas. ninku wuxuu ku dhahaa gabadha waxa uu doono, gabadhuna ninku waxay ku samaysaa waxay doonto. noloshayda iyo mushkiladaydu ma aha filim mustasala si aan dadka ugu warramo. qofka aan waxba akhrin haba yaraatee ayaa ka aqoon badan ka aan waxba akhrin. jaraa'idna ha ahaadee. kamaan caajisin inaan rido jabhaddaada, balse gantaalladu waa qaali, hadafkuna wuu jaban yahay. saaxiibkayow haddaad ogaan lahayd waxaan kaa sheego markaad maqan tahay, waxaad noqon lahayd mid la dhool caddeeya xayawaanada oo keliya.